السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا مقام جنرال waxaan taaganahay bartamaha xaafadda Islii waxaan rabaa inaan su'aalo warsado dadka ku nool xaafadda Islii marka isla socod wanaagsan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو dhaw maqaam jannal magacaaga وعليكم السلام magacii waxaan lahaa Hanad Xuseen Hanad su'aasha koowaad aan ku weydiinay waxa u dhacaysa sidatan xaaskaaga adiga aad qabto hadii ay diido hooyadaada inaan la noolaataan ama isku meel aad ku joogtaan maxaad ku sameyn lahayd ama aad dhihi mina hooyaday waxay diiday xaaskiisa ma كل حاسك هويدي وحافظ ما وحافظ ما ولا حاسك فوس هويدي مدير كرت سما حاسك يا بديده بين هويدنا لا تقول هذا هويدا ما أيدي سما مركب محيرته إن مركب أورام مسكر معنا هويدي لا مدير نايب هويدا هذا أنا قدر يكون هو أنا قدر إذا بحس إذا درا يعني هويدا در لا هسوا أوكي حاسك هويدت إن إذا لا تمس إذا اللي جوكته مجعلان لهاد مسمع كده زايد وأنا وجعلان لها لكن حاسك هويدي سديب هوي في عيتها ما شاء الله أنا وجعلها سما لأن بكوس جودة قوسمة إذا إنا مرك حشمة ومعنا واجب سويما لازم أوكي جودة دهذي هذا معلمان لما جحيو دهذي نينكي هدوه هيدي سكوري كينا وأنا أمر يقطع مسؤولية ديا مع فرين أو فرين دما كل اللي كورس حانها يا وهذا فرين أنت أقدر يا متقنا ودمر سمعنا ودها وشجع ودقمة إيتاي جودة صرت أري حنا دهذي قسم في عنا قفك من أدنك وحاوي قفك هدوه هيدا وجعلي هاي أذن لازم إنه هو يجعل سما لكن هدوه هيدا نعبت هاي أذن هو هيدا مش لقينا سما سموا لكن وحاف في عن مرة وحاف في صداها وحاف في عن أنا سلوي جديد شرف احترام وهيس لكن صداها مر والله قربا خاص لما كان وحي شيء والله تدري هي مسكرين ولا سكر سما مقصاص عندها يعني قد وين وحوفر يا معنا وعس واحد جير معها وحن لي وحسنا وحلي قراعين قص غلط ساسا مثلا يعني اوكي ما صدقت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كسو دو مقام channel magacaaga adoo raali ah magacayga waxa la dhahaa Cabdiwaab Rashid Abdille Cabdiwaab su'aasha koowaad ku weydiinay waxa u dhacaysa sidatan ma jeclaan lahayd gabadha aad qabto xaaskaaga in ay hooyadeeda guriga keento oo hooyadeeda ay guriga ku noolaato ama idin la noolaato gabadha hooyadeeda waa macquul way iman kartaa hadii ay la imaado wax dhib ma jiraan balse حاجة مركز إني إكنت أم بنسكت على هويد أيتها هويد وإكين كرت ديار وين ها أودي ذا ملا هويد إني كنت أوكي بالكبر هدي هويد هذه كل شيء حاسك هذا ديدا إني كوي ما تو هويد هذا مارت جوري مارت حاسك إدي بس تو يكون هذا هويد هذا مرة أو ما جوري كيني عمل عاد كدي لدي أنا ده obvious ده قفك أنا هويد أربن أيضا أنا ما بأركي كريبي قفك أنا هويد أربن أيضا أنت معنا كوا جنا قفك هويد معنا كوا كسيسي بتاني باقوم بنتو سارة ما وسيدينا أوكي maxaa fikrado ka dhiiban lahayd misna dhih lahayd gabdhaha hadda dhahay maartay wiilka hooyadiisa mise sodohdayda mar raba inaan meesha ku arko mise gurigeyga ay imaato maxaad fikrado u dhiiban meedaan waxaan dhilahay inta qof oo nacab hooyo sodoh inay ay maxaan ku dhahay wiilil ma qaar ma diidayeen laakiin gabdhaha waa inay macquul waxa way inay diidaan yani u imaanayeen sodoyaashu u imaanayeen soo booqanayeen inay diidaan waa macquul laakiin aan waxaan dhilahay my opinion waxaan dhilahay inay diidan yani ay isla wal jawaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دو مقام جنرال magacaaga محمد بالله magacayga محمد su'aasha koowaad aan ku weydiinay waxa u dhacaysa sidatan bal ka war hooyadaada oo adiga ku dhashay misna xaaskaaga keebaa kala dooran lahayd والله سؤال مهم أنا هويدي ومندورنا لها دور كوي بديني اوكي حاسك ادي aad qabto xaaskaaga xalaashaad hadii ay diido hooyada inay idin la noolaato ama guriga ay joogto maxaad dhisameeynaad aad ka dhilay gurigooda aadaysa gurigooda iskitaysaaniyo taas wallahi boosiga ma banaa qof hooyada diiday adiga hooyada ku dhashay qof diiday adna waxa kuma soo wasaaxay اوكي gabadha adi aad qabto xaaskaaga hooyadeed inay guri idin la noolaato oo meesha idin la joogto ma jeclaan lahayd waan jeclaan lahaa waliba inaan wax badan taro oo sodohda ayaan ilaaliyo waan jeclaan lahaa waxa اوكي gabadha dhahday in ninkeyga inuu markuu hooyadiisa guriga keenayo inuu anay warsadaa misna ani weydiiyadaan aan ogolayn uusan keeni maxaa fariin u far lahayd aad ku dhilay
wallaahi anu waxaan dhihi lahaa qofka qof lunsan waaye ilaahay u soo laabaan dhihi lahaa wax kalan dhihi lahaa ma garanaya. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Kusoo dhawo Muqaam channel magacaaga dorale. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مقعي ومحمد عبد النور محمد سؤال شكوذا كويدين وحيود عساسيتان مجعلان لهyd misna maxaad ka dhihi lahayd xaaskaaga haday diidi lahayd in hooyadaada ay idinla noolaato ama ay idinla joogto xaaskayga haday diido hooyada inay la joogto taas waa wax adag wax dhici kara ma maxaad ka dhihi lahayd marka wallaahi hooyadii iyo xaaskayga waxaan aad u samayn lahaa hadda aniga maxamed ahaan hooyadii haddii ay joogto waxaa joogi lahaa gabdho aniga la dhashay ayaa joogo marka hooyo sembriba waxaa ay ku fiican tahay inay gabar gurigeeda oo gabadha ayaa macnaha aad iyo aad uga habboon aabbahana wuxuu ku fiican yahay wiilka marka haddii hooyadii gurigeeda joogto waa wax qasab ah inay joogto waa waxay aniga dhashay midaal ahaan marka ka soo qaad xaaskii adiga aad qabtay haddii diid hooyadaada inay ku imaato taa kusoo booqato ama idinla noolaato wallaahi waa hooyadii haddii diiddo aniga ma rabto maxaad samayn lahayd marka waxaan ku dhihi haddii hooyadii diiddo waa ani inay rabin taas marka waxay caddaynaysaa inay rabin marka mid xigto xaaskaad qabto hooyadeed gurigiina inay idinla noolaato idinla joogto maxaa fikrada oo ka dhileed adiga taas aadaan u jeclahay waa wax fiican waayo waxaa laga yaabaa hooyadii in ay xaaskayga inay diiddo ama ay dhibsato laakiin hooyadeed haddii ila joogto aniga ahaan maxamed ahaan aadaan u jeclahay sababtoo tahay wixii ka dhiman waa yar tahay ayada wixii wax kasta oo ay gafto hooyadeeda saxayso sida aniga aan u arko okay gabar waxaa jirta social media hadda haysato oo dhahday ninkayga hooyadiisa markuu guriga keenay ama imaanayso waa inuu aniga i weydiiyaa iga ama fasax weydiiyaa marka taas maxaa fariin u reebi leedahay aad ku dhihi lahayd horta markaan run kuu sheego meeshaan 30 sano jooga laakiin waxaan ku dhihi lahaa weligii social media ma gelin weli ma gelin ani laakiin farsamooyin iyo waxyaabaha soo qabaqaabiyo dad way dhacaan mararka qaar laakiin ma galo marka haddaan geli lahaa xoogaalan ka noqon lahaa may gabar waxaa jirtaa dhahday ninkayga waa inuu u weydiiyaa haddii hooyadiisa guriga keenaya misna ay imaanayso waanay fasax i weydiistaa marka gabadhaas maxaa fariin u diri leed ama ku dhihi leed marka wallaahi waa laba kasta waxaa la yidhi laba hoos iska taabatay ayaga meeshay iska taabteen biyo hoostood marka labada isqabto oo lamaanaha oo dhahayso hooyada haddaad ii keento waa inaa ani ii soo sheegto waa waxay isku ogyihiin un wax dhici kara maaha dhaqanka soomaalida iyo dhaqanka islaamka caadiga wax dhici kara maaha waayo hooyadii gurigeyga kama xirno waa waqti kasta waa hooyadii ayadana waa hooyadeed marka taas waa kulley adduunyadan way iska halawday waxaa laga yaabaa qof qaldan inuu badan dumar badan oo qaldan inay jiraan in badan oo saxna way jiraan marka hadda tii social media ka soo hadashay oo saa dhahday ani uma jawaabayo laakiin waa kulley waa ujeedaa waa wax qaldan okay waa mahadsan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kusoo dhawo Muqaam channel magacaaga dorale cabdinaasir xaaskaaga haddii ay u diiddo hooyadaada inay guriga soo booqato ama ay idinla noolaato maxaad ku samayn lahayd waxaan samayn lahaa waan furi lahaa okay hooyadii xaaskaaga hooyadeeda ma jeclaan lahayd inay idinla noolaato mise ay idin soo booqato adiga qofkayga xaaskaaga hooyadeeda dan wax weyn maahan waa caadi haddii saasay maxaa fariin u diri lahayd dadka marka maalmaha waxaa maqlaya inay diidayaan xaaska inay ama hooyo sodohdeeda ay guriga soo booqato mise ay dadka la noolaato maxaa fariin dadka u diri lahayd fariin waxaa u diri lahaa waxaa u sheegi lahaa ummadda haddii naag loo ogolayn inay aadaan ama inay codkeeda kor u dhaqaado guri walbo nin baa u taliyo marka go'aanka ku saabsan reerka guriga degan waa inuu ninka uu mas-uul ka hadaa marka ninkay ku xiran tahay wax walbo guriga ka dhaco ama ka socdo marka go'aanka adigu kaa soo geylaa waa saas marka dadka fariin maxaa u reebi lahayd marka ku dhihi lahayd dadka waxaa ku dhihi lahaa dadka waalidka diiday inay gurigii la noolaadaan dadkii la noolaadaan waalidkii ili maxaad fariin u diri leedahay ku dhihi maya wax ku saabsan naagdo maya aniga ma ihi success but naag dhan qabiil ma lahan qof kasta uu cunug dhalayo inuu wiil dhalu jeclaan lahaa sababta waa qabiil ahaan magaciisa baa
magaciisa baa weynaan soo maahan naag dhanna laakiin nin kale bay baawadan oo guursan qabiil ma lahan go'aanna ma lahan marka waxaa dhihi lahaa wax ku saabsan nin iyo naagta hadal aamusiyadu ninka hala waraysto wax walba shaqo ha ahaato okay raggan naagaha ka amar qaadanaya misna naagahooda ku xiran oo naagta amarkeeda la yeelay maxaa ku dhihi lahayd oo hooyooyinkooda xaafadaha ka fiijiyey waxaa ku dhihi lahaa isgarta inaad ragga adinkaa tihiin oo naag surwaal loo xili karin intaas waa fariin okay waa mahadsantahay soo dhow